Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan khiyaaray waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada xiisaha leh aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya ruushka oo qaaday weeraradii ugu dambeeyey ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka geystay gudaha dalkaasi Ukraine khasaare xooggan oo ay geysteen diyaaradaha ruushka ayaan kula wadaagi doonaa saaxiibayaal qarax xooggan oo goordhaweed ka dhacay gudaha dalka Mareykanka waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac leh Xamaas oo sheegtay inay sii deyn doonto leestayaal kale kadib weerar cuslaa oo Israa'iil ay ku qaaday marinkaas iyo Gaza qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh aad ku daawan doontaa balse faahfaahinta qodobadaas intaan u gudubgelin daawad haddii ay tahay markii kugu horeysaan soo booqato fadlan YouTube-kana subscribe saar oo gambalelka furo muuqaalkana like garee oo la wadaaga saaxiibadaada ka mid noqo saaxiibada aan halkan markasta ugu baahino wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka waa hagaag daawadayaal aynu gudubgalno ruushka oo weerar culus ka geystay gudaha dalkaasi Ukraine diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo khasaare xooggan ka geystay gudaha dalkaas iyo ruushka weerarkii ugu weynaa ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka uu ka geystay gobolkaasi Kiev ayaa lagu dilay haweeney ku nooleed gobolkaasi Kiev waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 3 qof mas'uuliyiinta Ukraine ayaana sheegtay sidaasi iyadoo Moscow ay sare u qaaday weerarada kadib wadahadalo nabadeed una dhexeeya ruushka iyo Ukraine ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in ruushka ay 8 aroornimo hawada u dirtay ilaa iyo 273 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn ee droniska kuwaasi oo bartilmaameysay bartamaha gobolka Kiev gobolada kale ee bariga dalkaasi marka loo eego xogta ay bixiyeen ciidamada cirka kani wuxuu ahaa weerarkii ugu weynaa ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ku qaado dalkaasi Ukraine habeennimadii sanad guuridii saddexaad ee ka soo wareegtay duulaankii baaxadda lahaa ee ruushka ku qaaday Ukraine 23 Febraayo Moscow waxa ay soo saartay diiwaan gelin 267 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn wadahadaladii ugu horreeyay oo toos ah muddo 3 sano u dhexeeya ruushka iyo Ukraine ayaa jimcihii ku guuldareystay inay dhexdhexaadiyaan xabajoojin ku meel gaar ah Kiev iyo xulufadeeda ayaa ku baaqday boqolkii daqiiqo wadahadalka Istanbul ka dhacay ay ka soo bixeen heshiisyo lagu kala bedelanayo ilaa iyo 1,000 maxbuus oo dagaalada ay ku kala qabsadeen dowladaha Ukraine iyo sidoo kale ruushka madaxweynaha dalkaas iyo Mareykanka Mr. Donald J. Trump ayaa sheegay inuu la hadli doono madaxweynaha ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa Ukraine Mr. Zelensky weerarkii habeennimadii xalaha ee ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ayaa dilay haweeney 28 jir ah ee gobolka caasimadda waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 3 qof oo ku jiro ilmo yar oo 4 jir ah sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalkaasi Ukraine waa hagaaga daawadayaal weli waxaad daawanaysaa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka balse haddii aynu eegno qarax xooggan oo goordhaweed ka dhacay gudaha dalkaasi iyo Mareykanka qarax bamba loo adeegsaday oo ka dhacay bannaanka xarunta caafimaadka dhalmada oo ku gobolka California ayaa waxaa ku dhintay 1 qof halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen waxaana sidoo kale sirdoonka FBI-da ay tilmaameen in weerarkan uu ahaa weerar argagixiso qaraxani ayaa dhacay abaaro 5 saac ee duhurnimo xilliga maxalliga waxaana wax yar u jiray magaalada Plum oo ay ku yaalaan ganacsiyo badan oo ka mid yahay xarunta American Reproductive Center xaruntan ayaana sheegtay in wax khasaare aysan soo gaarin shaqaalaha ka shaqeeya isla xaruntani FBI-da dalkaas iyo Mareykanka ayaa mar dambe sheegtay inuu jiro 1 qof oo looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa qaraxan xoognaa oo goordhaweed ka dhacay gudaha dalka Mareykanka balse saraakiishu weli ay wadaan baaritaano sidii ay ku soo qaban lahaayeen ciddii falkani ka dambeysay Xamaas oo sheegtay inay sii deyn doonto leestayaal kale kadib weerar cuslaa oo Israa'iil ay ka geysteen gudaha marinkaas iyo Gaza Xamaas ayaa soo jeedisay sii deynta leestayaal dheeraad ah sida uu dhigayo heshiiska xabajoojinta cusub ee Gaza kadib wadahadallo cusub oo la qabtay shalay wadahadaladani ayaa bilowday saacado kadib markii ciidamada Israa'iil ay weeraro cusub ku qaadeen marinkaas iyo Gaza Xamaas ayaa ogolaatay inay sii deyn doonto 9 leestayaal ah oo ay ku bedelanayso xabajoojin 60 maamul ah iyadoo Israa'iil ay maxaabiista Falastiiniyiinta sii deyn doonto sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan Falastiin sarkaalkani ayaa sheegay in heshiiska cusub ee loo soo horjeeday uu sidoo kalena ogolaanayo ilaa iyo 400 oo baabuur oo gargaarka ay soo galayaan maalintii iyo bukaanada caafimaadka laga daadgureynayo Gaza Israa'iil ayaa iyaduna dalbatay cadeymaha inay nool yihiin macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan dhammaan leestayaasha ee ka soo jeeda dalkaasi Israa'iil wareegga cusub ee wadahadalada xabajoojinta
ayaa waxaa dhexdhexaadinaya Qatar iyo Mareykanka oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar. Israa'iil ayaa weli si cad ah ugu jawaabin heshiiska loo soo jeeday, balse waxay sheegtay ka hor wadahadallada inaysan ciidamadeedu kala bixin Gaza, ayna ballanqaadi doonin inay sii joogi doonaan dalkaas. Hagaag daawadayaal, waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena, balse haddii aad nala soo gaartay dhammaadka qodobada caalamka, waxaan mar labaad kaa codsanayaa inaad YouTube-keena subscribe saarto oo aad gambareelka furo oo ka mid noqo saaxiibadan halkan markasta ugu baahino arrimihii ugu dambeeyay caalamka.